بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا markale walaashin Zainab halkaan naga daawanaysa Zainab mataan beauty meel walba joogtaan farxadii bashbashi caafimaad aan rajaynaa soo dhawaada walaalaha sharafta leh maanta waxaan soo tabinayaa maalintii dhaqaalaha inta u gudagelin waxaan iga codsanayaa si kal iyo laab ah subscribe-ka inay noo saartaan like noo dhahdaan sida meel dheer u gaarno iyo hamigeena noo hirgelisaan aan rajaynayna insha Allah commentigana noogu soo qortaan dhiirigelin iyo maaragtay kor u qaadisbo ibaaniga soo in insha Allah bidna al-karim maanta waxaan iga faa'iideynaa insha Allah hooyooyinka qaasatan hooyooyinka wax oo qurbaha ku nool ama wadankii haba joogaanba waxaan iga faa'iideynayaa dhaqaalaha insha Allah hooyo walba guri joogto mas'uuliyadda saaran dhanka haday dhaqaale noqoto oo marka dhaqaalaha haday iyada soo shaqeysato iyo hadii loo soo shaqeeyoba waa inay dhaqaalihii ay markaasna gurigii sida ugu maamuli lahayd waa inay garanayso maasha Allah tabarakallah maanta waxaan sameynaynaa koow horta markaad mishaarka aad qaadatid oo wax aad guri uu kugu soo dhaco kontegaada waxaa sameynaysaa koow waa inaad guriga ijaarka iska bixisid ijaarka guriga waa muhiim haddaa maanta ijaar bixin wayso banaanka lagu soo dhigo aday ku taalaa waaye marka koow waa inaad guriga ijaarka iska bixisid waa korontada kugu jirto guriga waa inaad iska bixisid waa inaad meesha xanaanada ilmaha geysanaysid aad iska bixisid waa inaa maaragtay telefoonka aad ku hadlaysid iyo internetka iska bixisid waxaas oo dhan markaa iska nadiifisid waxa kale uu ku soo haro ama ha yaraado ama ha badnaado waxa ku soo haro waxa la rabaa inaad markaasna aad adeegi guriga aad ku soo adeegto si nidaam leh markaad adeegaysan insha Allah fursad yar oo sir ah insha Allah niga dabageyna gadaal ay soo socota video bilaab ila dhamaad hadaad fiirsatid oo dhameystirsid halkaas point fiicana kaaga soo baxaya insha Allah bidna al-karim si nidaam leh nigu xaqabtiraya soo dhawaada bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaada markale iyo walaashin Zainab halkaan naga daawanaysa Zainab mataan beauty ma sha Allah tabarakallah meel walba joogtaan waxaan leenahay kal iyo laab aadi baan jecelnahay soo dhawaada maanta ma malaysan kartiin oo malaysa soo daalale guriga waxaan ku dhahay marka soo adeegayso waa soo daalayaa ku dhahay marka insha Allah bidna al-karim waxaan soo sameeyay iyo waxaan soo adeegayba insha Allah waan ila qaybsan doonaa jadwalkii dhaqaalaha waa insha Allah bidna al-karim hadaad maaragtay nagu cusubantay soo dhawow gacmo furan kugu soo dhaweynayna subscribe-ka casuban dhacdac nagu sii like share and comment-igana hadii xagaada waaye like noo badi meel dheer ayna gaarsiinaysa insha Allah bidna al-karim dad badan noo daawadaan marka waxaan leenahay waa walaashin oo ilaab waxaan ku dhahay niga qabtirayso wax walbo markaas ayada ma sha Allah tabarakallah waa intaan bixin ka hore waxaan sameynayaa waxaan galaa internetka waxaan fiirinayaa dukaamada raqiiska cuntada jaban qiimaha cuntada marayso qudaarta fructiga wax markaas u baahanaa intaan aan ka maaragtay ka ogaanaya hadda waxaan galay dukaankan extraha ah quubkan galay waxaan ka raadiyay waxa aan ka u baahnay qudaarta iyo waxa la dhahay maaragtay fructigaba de waa marka boqolkiiba 11% waaye marka waa fiirinaya wixii ay markaas hadii gudaha loo gali karo iyo hadii marka loo gali karin hadda waxaan arkayaa si saaidayna gudaha loo gali karin ka bacdeen waxaan sameeyay hadana dukaanka kale oo ku xigaan fiiriyay dukaankii aan google gareeyay dukaankii aan fiiriyay gudahan ku dhiftay meesha jaban maanta afakaadada 9 karoon ay maraysaa 12 karoon maangaha karootada 12 karoon 19 dadaba karoon 25 karoon 18 xabba ku jirto ukunta marka waxa soo dhid soo ogaaday aan isku dhuftay markaan lacagteeda ogaaday dhammaan waxaan rabay oo dhan aan marka intay lacag ay noqotay aan isku darsaday tartiib intii ay ii noqotay aan qaadanayaa tartiiban dukaanka tagayaa hada suuqan aaday waa kana waa socdaa tartiiban dukaanka tagayaa waan soo adeeganayaa intaan markaas aan go'aansaday oo guriga anoo joogo ka adeegtay sidaan u adeegtay baa hadana sidii bay iigu soo go'aankii iigu soo dhamaanaya isla lacagtii ay hadana ugu tagay dukaankii ay ku qoran tahay marka insha Allah bidna al-karim sidaas samee guriga adoo ka bixin ayaa si ogaani kartaa qudaar walbaad u baahan tahay lacagta in la gadaayo iyo wixii laga rabo halkaas aad ka baaraysaa waad isku dhufsanaysaa total wixii ku imaado dhamaan
ayaa markaas waad maaragtaa qof dabaal degsano oo wixii maaragta uu adeeganayo fahansan wuxuu markaa guriga ka dhamaaday og baa noqonaysaa marka hooyo markaas waxeeda u aruuraya noqonaysaa hooyo waxaa noqonaysaa marka labada maaragta dhinac firfiirinaynin maalintii marka maaragta dhib kusoo wajaho baa noqonaysaa hooyo walbo waxaan kula talinayaa intay dukaamada iska aadin waa la iska soo qaataa iska soo qaado hiblaayaha haysataa soo qaado waxaase hiblaayo u yaal gurigeeda adna dhigo waa inaad iska mamnuucdid waayo leverkaada waa inaad ku taagnaatid haddaad aragto hooyo intaasoo waxaysato allaha u barakeedhe laakiin leverkaada ha ka gudbin sababto waxaa laga yaabaa hooyadaas inay ilmaheeda u kala koreen u shaqaynayaan adduunyo ilaahay maasha allah ay ku jirto marka kuraasi ay soo dhigato iyo maaragtay adduunyo ay soo dhigato iyo haddaad ku mashquushid adna lacag kuuma aruurayso ilmahaada gaajay kaaga dhammaanayaan adigina dadkii aa rabtay hankaa rabtay ma gaaraysid sababtoo ah waxaad ku shaqaynaysaa maskaxdadeed weligaa maskaxdaada inaad adeegsatid ama aa fikirtid ama maskaxdaada aa ku shaqaysatid ayaa wanaagsan ka fiirso hooyo haddaad tahay suuqantaa iska tegtid waxyaalo macno lahayn intaad soo qaadid hadhowtina aad ka shalaynaysid shalaaydo badan waa xaaraanaa la dhahay marka ha shalayno go-aan walbo qaadani waa inaad ka digtoonaatid maxaa kaaga imaani karaa maxaa maaragtay dhowti faa'iido oo ka helaysaa waxna daawatay yaa video iska daawani kartaa waxbaad ka heli kartaa wixii qarashka inay haynina dhici kartaa xooga isa saaraysa caawada dhan waa ka fikiraysaa marka madax xanuunka sito kugu dhicin inaad ka feeri jignaatid waayo waxaa heli karto samee waxaa heli karin alxamdulilah ma heli kari ilaahay maanta isiyo laakiin waa samaysanaa taana waa alxamdulilah yaa marka hooyooyinka waxaan kula talinayaa dukaamada marka qurbaha joogtid hooyo wax ku siinaysa male aaba wax ku siinaya male walaal kuusoo shaqaynaya male qof wax bini aadan ku siinaya male haddaa waxaada kaa dhammaaday wuu kaa dhammaaday yaa dukaanna deen kasoo qaadanayso ma lahan marka haddaa hooyo tahay waxaada bishaada ha kula gaaro yaa bishaada ha kula gaaro qof oo deen aad kasoo qaadi karto ma lahan wixii lagu siiye waa wax go-an waxaa shaqaysatana waa wax go-an yaa marka inaad dadaashid oo bishaada inaad intaad isgaarsiisid waxna kaaga soo hari karo isku day marka ayuutaa gelaysaa ayuutadii waxba aad u haynina talam iska dhahaysaa marka deena badanaa lagugu laana bishan mahaye bil kale bishan kale mahaye bil kale igaasaa intaasoo kuma lagu laana marka jooji waxaa fikir haddaa waxaa heli karin ha isku gelin meelaha yaa lagula jijiidin samcadaada yaa halaabin ma fahanti shaqadaada iyo focuskaada marka adiga maskaxdaada ka shaqaysay maxaa ii hirgeli karaa maxaa ii qabsoomi karaa sideeba aniga isku dabo sidee hooyo wanaagsan ku noqon karaa sidee aniga markaas waxayga yaa waxaa xoogayga aan shaqaystay sideen iskugu maamuli karaa caruurteydan ooga nooleysan karaa anigan aan ku noolaan karaa nolol fiican oo raaxa leh oo maasha allah tabaarik la-ah yaa sideen ugu noolaani karaa oo ficayga iiga weli maseeri karaan waxaasaa lagu tartamaa laakiin waxay heblaaya haysata iyo hebel muxuu yiri iyo maxaa la dhahay maxaa soo gala suuqa iyo maxaa cusuban iyo haddaa ka daba wareegtid hawdaadaa kacdaan ku dhah marka waan walaal wuu kula talinaa kaliilaa baan kula talinaa marka faa'iidayso barnaamijyada dhaqaalaha mar walba soo geliyo insha allah siduu noogu soconaayo tartiib insha allah biidnil kariim hadda alaabtana gacanta ku haayo faa'iido badan ay ku jirtaa waxaa ku jirtaa caloosha haddaa dhaqaajisanayso saqiir ilaa kabiir waad siisan kartaa waad cuni kartaa waa caloosha lagu bixiyaa waa maaragtay waa fructi la shiiday oo markaasna ama ayagoo mirmira soo gadan kartaa waa shiidani kartaa waa cuni kartaa ama boorashta ku darsani kartaa waa cuni kartaa fructiga mar walba fructiga ku dadaal inaad gurigaada aad ku badisid caruurta aad siisid u shiidid cabsiisid yaa mineraal badan iyo fitamiino badan ayaa laga helaa marka fructiga waa adeegaya waa isla fructigii hadday soo arkay mogtahay wixii dhan xagan ka soo diyaarsaday gurigeyga anoo jooga soo maamulay dhag markaan suuqa ima dhibaayo waxaan u baahnaay warqada igu qoran tahay intii la gadaayo iyo wixii warqada igu qoran tahay mogtahay maasha allah tabaarak allah hadda markaan soo adeega markaan soo dhameeyo ka bacdan guriga imaana sidii aan markaas u kala habeeyey qaabkii aan tusaa insha allah biidnil kariim yaxay soo adeegtabo videogan
insha Allah waxaan rajaynaa inuu ku cajab gelin doono dardaaran yarna inuu kuugu jiro oo maaragtay ku cajab gelin doono af Soomaaliga walahi naga dhumaa maasha Allah tabaarak Allah hada soo adeegay haday caano noqoto haday yooga noqoto haday heblow noqoto haday heblaayo noqoto waa la keenaan ku dhahay marka alaabtana arkaysa 2 week inaan aado mareeb meel inaa u dhaqaaqo mareeb heblaayo wax soo qaad may 2 week markay check noo dhahdo axadan laba axad kadib meel u socdiyaan ku dhahay marka sidaas hadaad samaysid 2 week bishii 2 jeer hadaad ka aadid alxamdulillah waxa jig waaya sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi